wafdu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Cusmaan Bare Maxamed ayaa soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana si diiran magaalada ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle. wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Cusmaan Bare Maxamed ayaa waxa ku weelinayay mas'uuliyiin oo kamid ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle ee dhawaan la magacaabay waxaana safarka uu ku yimid gudoomiyaha baarlamaanka uu ku saleysan yahay inuu golaha baarlamaanka uu kulamo u la yeesho si uu wax uu kaga weydiiyo isbedelka siyaasadeed ee gobolka inta uu ka maqnaa gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Cusmaan Bare Maxamed. kadib markii wafdiga uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Cusmaan Bare Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle oo ka hadlay ujeedada safarkooda iyo waqtiga haatan ku soo beegay. waxyaabaha aan marka u nimid waxaa kamid ah baarlamaanka sidoo ogtihiin waxaa hor yeelay hawlo fara badan hawlahaas oo kamid yihiin ansixinta iyo ka doodida xeer hoosaadka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dhisidii gudiyada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. qodobadaan u nimid labaas qodob ayaa ugu weyn wixii kale hadda jirana waxaan u dhameyn doonaa insha Allah taala si dastuuriyan aan u dhameyn doonaa. baarlamaanka hawlihiisa aad ay u badan yihiin waxaan ka codsanayaa marka dhammaan baarlamaanka wixii maqan inay yimaadaan shacabka reer Hirshabellena waxaan rajaynayaa guul iyo horumar iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan rajaynayaa. intaas ayaan doonayaa inaan ku soo koobo. waxaan leeyahay baarlamaanka isdejiyaan waxaan hor yeelay wax badan waxaan leeyahay haddii wax jiraan waxaan leeyahay waa inay waxaasu si dastuuriyan ay u dhamaan doonaan insha Allah taala. annagu waxaan nahay dawlad curdun ah uma baahnin khilaafaad uma baahnin isqabqabsi uma baahnin muxuu ahay mu'aamarada kale oo dusha naga yimaado. waxaan leeyahay marka cid kasta oo reer Hirshabelle waxaan u baaqayaa inay ka shaqeyso nabadda iyo xasiloonida iyo deganaashada. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle dhawaan la magacaabay isla markaana ansixinta ka sugayo golaha baarlamaanka ayaa asna saxaafadda la hadlay. bacda salaam mudana gudoomiye waxaa halkan ku diyaarsan oo taagan inta hadda aniga aan sheegay oo u diyaarsan in ay ku soo dhaweeyaan ayagoo aad iyo aad ugu faraxsan gaar ahaan golihii wasiirada ee dhawaan lagu dhawaaqay oo nasiib u yeeshay markii ugu horeysa maanta inay airportka ka soo dhaweeyaan aduguna aad naqatay qofkii ugu horeeyay oo ay soo dhaweeyaan. waxaan isleeyahay waa farxado kulmay oo dhinacyo badan taabanaya. mudana gudoomiye waa ku sugaynay in araggaaga waxa waaye waa loo oonay ilaahayna waa ku keenay alxamdulillah rabbil caalamiin. waxaan rajaynaynaa marka hadda shaqadeennii iyo howlihii la lahaay in meesha ay ka socon doonaan. Ahmed Maclo waa Diftaar Zaki telefishinka caalamiga ee bulsho Jowhar.